رمضان مبارك مقعد إبراهيم محمود جامع BBC Somali waxay soo gudbinaysaa barnaamijyadii aan ugu talagalnay bisha Ramadan barnaamijka caawa uu ka duwan yahay barnaamijyadii hore maadaama uu lagu jiro bisha barakeysan waxaanu eegi doonaa qoysaska Soomaalidu ma yihiin kuwa inta badan iska caawiya haddii ay noqoto afur karinta ama suxuurta raggu sakaalintooda ma qaataan ma ku dhiiradaan inay jikada galaan sidaan wada ognahayba ragga Soomaaliyeed dhaqan uma laha in ay jikada intay galaan cunto ay soo kariyaan ay la wadaagaan familkooda ama qoyskooda inta kale sida xaaskiisa ama caruurtooda hadaba waxaan la kulanay mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Nairobi oo isagoo caawa igu martigeliyo gurigiisa isagoo waliba ku jira hawshii ahayd inuu ka caawinayo qoyskiisa cunto sameynta cashada ani fikrad ahaantayda Cabdiraxmaan ahaantayda waxaan dhihi karaa dadku waa kala duwan yihiin inkastoo caawa aan jeclahay waliba inaan ku tuso oo macnaha tusaale ahaan aan ka siiyo fikir cad inaan anigu jikada uga hormari karo gabadhayda wax walbana aan ka caawin karo waqtiga hore nolosha way adkayd hooyada iyada ilmaha xabaari jirtay iyada cuntada karin jirtay iyadoo mid dhabarka u saaran yahay biyo soo dhaamin jirtay waxa la isdhihi karaa darbi baa ka dhisnaa ragga iyo dumarka dhexdooda hawsha uma qaybsanayn balse hadda hawshii iyo shaqadii iyo gurigii wax walba waa qaybsan yihiin gabadhii shaqay aadaysaa shifti aadaysaa aduna shifti aadaysaa ama waa xanuunsanaysaa ama waa cuslaanaysaa uur yeelanaysaa marka tan waa life skill waxaad ka dhuuman kartid ama meel aad uga baxsanaysid ma marka waxaan ka aaminsanahay horta waxaana ragga horta anigu ahaantayda horta hawshii qaybtii aan ka lahaa waliba waxaan jeclaa inaan gabadha ka badsado cuntadii ku taal cabitaanka ku yaal wax walba taa ka baahatay horta adaa iska bikow midda labaad qofku waxay dhahaan qofku markuu tiisa ka habo to kala ku daraa markii lagu dooranayo xitaa aad reer yeelanaysid hadda waqtigan dambe noloshu waa isbedeshay waxa number 1 ka ah in role model la joogo inaa horta number 1 waxa ka ah inaad cuntadiiba karin kartid horta waa lagu weydiinayaa skills ahaan wani guriga hadaan kaaga tagay yeelaysaa lagu leeyahay marka waxaad ku jawaabtaa kuwa adkaanaysa horta daadan aqoontaas tan labaad dhalinyaradu ninna ma jecel hawl bila aadanka dhan taas ka siman balse waxaan dhihi lahaa waxa jirto wani waxa daadan iska deyn xitaa wala iska qafiifiya marka waxaan dhihi lahaa macnaha qof walba waxa duusan xitaa iska deyneen hadii uu dabeecadaas inuu exaggerated uu ku sameeyo oo cirib tiro horta qofna suuga iska ilaaliyo saxanka jikada hadaa xagga lagaaga diido meesha la keeno waa taqaanaa hadhow saxanka macnaha jikada wax ku soo kari hadii lagu diido marka la cuno qaaditaanka jikada geynta lagu ma diiday so waqti waxa jira gabdhaha jikada ay leeyihiin iyo waqti adigu aad yeelan kartid so inta time-ka aad freega tahay oo dadku ay kala jaam gareysay inta jikada tagtid xabad yaanyo hadaa jirtid xabad basal aad jirtid xabad camba aad jirtid waa training maalin ku xigto adiga improvement sameynaysaa marka waxaan is dhigi karaa qofkii macnaha horta amal walba waa niyad al amalu bi niyya amalku waa niyada qofka haduu asaga isku qanacsan inuu wax qaban karo maalin ka dambeeyay jikada waa u dhawaan karaa maanta dad baa qurbaha u tahriibo ma jikada adigu u tagi weysay guriga dhexdiisa ku taal marka wax adag anigu ma arko oo amal weyn sameynayo oo dhibaato ka yeelayo oo macnaha qofka darbiga Mexico inuu ka dhisay meeshaas uma arko laakiin taas waa ciifnimadaadii adigu un bay ku xiran tahay